guriga ii fariisato reer ii noqotaan go'aansaday ma fahanti de marka aabo waxaan ku waa sax aabahay baan la hadlayaa aabaan idin xiriirsiinayaa de marka aaba saasa ku soo raadiyay inanada waa aabaheedo de muxrim la'aan ma noqon karto ma fahanti aabe waarun marka aabe wax fiican ma horta aaba samaysi gawdhe hayaabe maya aaba heste هاي يلا لسا أب هاي إيسا أب هاي إيسا كش هاي الله هذا أب هاي الله هذا قرمات أب هاي يرت لحظة الأب قرمات أب هاي يرت أب خدك كشر هاي الله هذا تبلا وريا هالو هالو تمني لمات بقى الله وادي لمات هيا gabadhii ayadoo saddexda bilood jirta ay kuugu saddexda bari jirta bilood maahan ay kuugu dambeysay miyaad maanta inta aabbo u noqotay soo raadsatay gabadha soo madano aabbo iyo dad isdhalay intay rabaan inta hadayna kala dhimanin way isa soo raadsan oo way isu iman soo maaha war ilaahay amarkiis bay ku dhacdo oof waraalle intaan ogaayo ay noolay xageebaad ku dambeysay adigu jidhoo jir dhigtay aan waayay oo reero kalaan gabadhay طلعي نبا ميه ماشي هتوقت هتاقوا قوي ما انت هتجر سوى قوسته إلى وهذا مركز تيجي حد يسوق قوسين سقبل هذا مركز يرد محاول صور رات سوى جدوا حس كويس أو نن أقل علم لا تهاي قبل هذا مركز ترى طاي يريد أي طبعا تعودي أبني ما أبى هني باسك أبني من لو بحي أبى هني محاول صور رات سوى هذا مركز أيضا الله بعتنشر الله صوت دون طاي وروح ذيك بوت جماعات بقت أسور هذا نيس gabadhii waa dhaxdeerahayd baa wax la ii sheegay taleefonkaaga iyo reerihaad ka dhalatay waaye buug xuna oo berigii aftirkaaga iyo qodadaas igu qorrayna iga war ina ade war heedhe wax muriyaax ma kuu sheegaa gabarna kuuma hayo gabarna igamaadan dhalin imana taqaanid ammaan isii gabadhayda iyo reerkaygana banaanka iga mar 25 sanaan kaliya la daala dhacaya hadda inay dhahdo gabar baad ii haysaa jileecaygaad ka aragtay maya usnaya cadow iyo nacabba adaa ii jabiyo asaagii adaa iga reebay aamusnaya war baan kuu hayaa war gabadhaada adaa nacay oo ka cararay oo aabbo booskiisa gabay oo saaqida awriyaa gabadha markood ku daraysa gabadha xageebaad ku ogeyd oo aad waryaa gabarna kuuma hayo kumana aqaan mar dambana telefoon aan inta warigaa saasaad ahayd khayr beer war iga tag amaan idhaaf naya isoo fiiri naya hooy adaan kula hadlayaa isoo fiiri goormaad aabbaha yeelata baa noqday dharigii labada dhinac ka gubtay adiga aabba dhexdiinaada ku dhamaaday hadda weynaado oo jaamacad damay oo naag weyn oo xilasaanbada aan noqday ma mustaqbalkayga waa qirqiir galay oo noloshaasaan ku jirayaa waayahay maguun baa noqday gurigan kuu dhex fadhiyaa war baan ku haya idhegayso aniga horta isoo fiiri indhahaaga aniga yaa maahinaya isoo fiiri hooy macaan 4 sano iyo 3 sano iyo 2 sano iyo 10 bilood iyo 3 bilood iyo 4 bilood markaa jirtay aabahaagaan maanta isagoo garaadada la imaaday oo telefoonka aniga iga nacnacale xagee buu jiray intaa ii sheeg daarun waan yaraa maxaan ka ogaa hooy meeshu jiraan waan yaraa noloshaad ku kala tagteen aabahay maxaan ka ogay hooy macaani yaraantaada ninka aan ogeyn weynaantaada maxaa ku baray oo ku tusay hadda mustaqbalka seesa fursaddu kugula soo hadlay u raadisa ninkii anoo 3 bilood dhalan 3 bari adigoo dhalan aniga banaanka iiga tegay see ku keentana in raad soo keentid waxa ku keenay hooy macaani inay dhashay ila soo rafaaday heerka ay soo gaarsiisay igu soo tacabtay ma diidani hooy xaqaagana ma xaqiriyo abaalkaagana ma gudi karo laakiin reer baan kuu keeno meher baan rabaa in la igu xiro aabahay la'aantiisa u naya meherkaan anigu raaliga ka ahayn oo ninka anigu labada wado aan u dajiyay aan marayno aad iga daba wadid wax ma kuu sheegaa guurkii ma ogolid aabana ma ogolid horiyo dabadiid baa tahay hooy macaanti see ku yaala aniga macaantooy maba u baahaniba aabaha inuu guurkaaga iyo noloshaada iyo afaarahaaga inuu soo galo nolol ilaahay xaaladeeda og yahay baan kugu soo koriya haybta aad sheegatay galaas biyo ay leeyihiin weligaa maadan cabinaaya waa ogahay taa ma fahant ogahay guurkana see laga yeelay xoolahaygaan kugu soo koriya iyo ku walaalahay iyo mid aanu kuu shaqeeyo dhidi ku fariistay 30 jir anoon gaarin oo quruxdii ka bataan cidlo kuu fariistay inta caana kuu gala saa ku dhidkaga cuntinaaya
ma ifahmaysa aniga aab baadan lahayn oo adeer baadan lahayn oo walaal baadan lahayn oo qabiil baadan lahayn oo tol baadan lahayn anaa ku dhalay oo aad dhiigayga qabtaa quruxdaasna ayaa anaad igu shiishay intaan la ekaaday waad ujeedaa iyo markaan ku leekaasaad lahayd ayagaa kaa tagana banaankaa kaa maray waxba aniga igama gelin bulshada wacal maxay tahay manaag naya manaag kuwa eg baa adduunka maanta joogta ma gabar adiga kula facaa kuwa eg quruxdu waa qabiil quruxdu waa reernimo quruxdu waxa way gabadhu inay marwo noqoto meel kasoo jeesatay iga tagdaanina ku dhamaaday khasaaro iyo stress iyo dhiikar baan korsada goormay aabbaha iyo ehelka iyo tolka yeelatay goormayse u hanqal taagta ninaan anigu soo marno aniga isoo marno aana soo saxiixin godkaygaa biyo igu soo galeen laakiin saan raba hadday wax noqon waayaan nin lamooda ma ihi laakiin waxba yaana digdiglayn dumarka soomaaliyeed oo dhan baa marxaladan ku sugan naag kasta markay cunuga 4 bilood 3 bilood iyo 2 sano jira inta laga dhaqaajiyo oo ninku meeshuu rabo aado soo dhaqleeyo oo naaga soo guursado markay gabadhiisu 22 sano gaarto oo ay jaamacadii iskuul dhamayso oo nin bila aan soo doonto buulayana aabaan u ahaa baad barata laakiin waxa igu ballan ah adoon dhiman inaan godka geliyaa haye warha dhaqa iyo wara fiican ina aabo seeta fiican way fiican sama ilaahu mahad iska leh alxamdulillah haye waa ku fiican maanta tii dheereed baa guriga ka dhacday iga dimi telefonkan baas waa silent baan iska geliyaa marka adigu ku imaado silent baan geliyaa waxa sida ay arkin cid ku soo wacanaysa waxa ma jirtee ma imika waxaan ku la xarbinaynaa saynu ugu midoobi lahayna telefoonku mashquul kara maaye waxaan ku ori maanta tii dheereed baa guriga dhacday waa baan la hadlaysan lambarka aabo intay gabadha qolaan kala bahno meesha ingiriiska joogtaan lambarka aabay soo tuurtay way ina aabaan waa way aaba markaan wacay waxaan ku dhaano aabahay la hadlayo aabay say igu faraxsan yahay aaboy macaan badan ay kuma arkin ay bahgooni baa hayday alla maana ku heli karo odaygiisa igu mashquulsan yahay oon arrinka u sheegan ku dhaabo inaan jaamaca wada dhameeno aankaas isfahanayo de aan rabaa inaan kugu soo xiro uu yiri aabo diyaar wax alla waxa iga dalbato madaxa dushiisa ay saaranta mana wax ka diidi kara ayun bay hooyo soo gashay daf ala hadalkii ma afka ka tirimsan meel kale ka tiri ya nama ku soo koriyo ina waxaas waa soo korisaan laakiin waxa loo baahan yahay the reason cadaan ah xaajadu marka waa adkaa ana qof weyn baa noqday mustaqbal baa la rabaa nin baa la igu meherin rabaa yaa meherinayaa waaro ma waliga waxaan leedahay hooyo ay soo korsato meelaha ay istaaga waaro maamadu way ugu xanaaqdo waxay ku tiraa waaba ku odagii ma isla hadleen iyo waa ka soo baxay oo wada hadlaya laakiin waxay tiri ha odayga telefoonka way igala booday ba haye soo khad ku jira soo gashay sama way igala booday waxay tiri maxaa la jiray waryaa ima sheegin kartid anaa dhalay bax odaygii wuxuu ku naan ku imanaya niyo anaa warkaaga soo afjaraya sidaasaan kugu waayi karaa waxaan ka cabsanaya odayga saanta markaas ku yimaadaan deynay inay maxaa la jiray odaygu ma soo socdaaba istilaanba waa ku imanaya wuro laba markii buu gaar soo raacay ha istilaan baa tiri nafta ha iska gooyaan aniga adigu soo isma helayno inaad maxay sahlaan guurku horta hadii odaygu soo raalli kama may odaygu soo aabahay raalli buu keenay bes intaasaa naga badan hooyadayna inay bixiso way rabtaaye ma qaan wax kala islaanta afka u buuxinaya islaanta xoogaageeda haddaan siiyo soo caadi maaha kontonkay sheegatay baan siinaynaa war xaajadu imka lacag maaha xaajadu imka maya ayadu waa la qaboojinayaa qaboojiskii damiya miyaan garanaya maamadu hadday lacagun doonayso maxaa liiti warheed anu hooyaday lacag bay doonaysaa ma dhihi kara waxaas waa igu caabe maya adigu sodoh waa soo dahwanaajiya oo lay bixinayaa soo dahwanaajiyey islaanta waa iska dhisaysaa ha islaanta xaggeeda waa anigu waaba iska dhisayey odayga aabbaaba xoogaa maalintii dhaweyd igu gacan adkeeyey soo maada garan midda anigu aan rabo waxay tahay aabba maalintuu yimaado iyo aniga aabbahayna maalinta waa u yeeranayaa aabaha maalinta hore waa kii kula socday arrinka ogaaye de maalintii hore xoogaa islaanta buuna la sheekaysan karin oday muxtarama weeyaan maalinka uu yaabay abay islaamihiisu xataa way jecel yihiin oo waxay isugu yeeraan odayaashaas kale sadaqii noqon saa jeclahay baari hadda aday xagaaga lagama mari kara moogtaa haddaan dhaho kiiba waxaa yidhi budh iyo saas oo cumaamada kula dhacayo kuna yowmal khayr baa tiri odayaasha noocaas day hadda gorma imaanaya laakiin islaanta hooyadaa maanta aabbahay baa is arkaysaan abshir islaanta hooyadaaya anigu wallahi waa ka baqsana hooyaday
qisadii xaawiye aadan ku dhacday baan anugu ka baqaya ما إنه ما نعيس قصدي حوي هذا متاجنين بيه ee تونت بين تاجن هاي ها. هذا waa sax واحد سمي ساعة tan culin boodheri waa ku dhacday laakiin tiis muu calfana aabbahay baa sidaa kaaga dhaqayo oday fiican bay dhalay maasha allah hooyadiina way iska kulushay maana waa islaan fiican islaan xun maaha horta isma waayno anu waa jeceshaana waan ku jeclahaa waa sax mustaqbali guur xalaalna waa rabnaa waa sax fahanti de waxaan ku dadaalanaa inaan isku heli lahayn muhiimaduna waa taas soo maaha waaya anu waxba kuma diiday war yaa hadee eedo waxaan maqli jiray baqaliyo reer magaalaha ina barato baraarkaan u baqay war maxaa ku dhexlaya gurigii carruurtayda maalin kasta iyo gabadhayda hado oo wiilkaan ay dartiiba ku yimaado allah wiilka saddex baa u noqon doonta saddex baa u noqon doontaa dhaaf wiilka hooyo allah hooyo adduunka weji baa ka haray maad weji reebar doonin saddex baa la rabaa inaa noqotid naya isoo fiiri indhahaaga ay amahay 2 daqiiqo isoo fiir naya aniga waa ku fiirinaya adna u qaylinaysa baad ku daalay labadeen wallahi gacantaydan kaa ilaalinayaa kuumana quuro inaan wax kugu sameeyo ma maqlaysaa ninka warku hadalka isagoo laba ah ama isagoo hadalku mid ah laba lagama dhigo waan xanaaqsanahay dhiigga hay ku korin ninka haddaan mar dambe gurigan ama albaabka adoo ka furaya aan arko ama xataa la ii sheego inuu ku ag taagnaa yaa adduunka ma wada saaraanayno mastile ma adduunka maba wada saaraan ani adiga run baan kuu sheegayaa dambe ninka ayaan arkin dambe ninka ayaan arkinaya ninka ayaan arkinaya mar dambe indhahaygu hadday qabtaan yaa usnaya us ninkaa dambe yaan arkin dambe yaan arkin indhahay wejigiisa kale ninkaas naya kala ilaali ninka wejigiisa iyo wejiga kala ilaali joog ninka dambe yaan arkin ninkaas